هذا البيسكت أيوه يتيجي تقوله أبغى دواء يا نبات دنيا وأيودي بيه أبغى أيودي بغى دواء يا نبات دنيا وأيودي بيه الله أيودي وأنا يسافر الله يبارك وين أمباراتك كمان وين أمباراتك يبقى الله يبارك يا هاك سنة ليمون ناكافيو قليور وين ما نسيتها هيه قليور قليور كذا كوم يا برا هيه أبغى في أنا وهذا باين قبلي هذا وعيقريو أنتوا نيجا مقرنين تكلموا بس كتبوا قبلي تابر كلا أبتك وهاك سنة ليمون kuya halka sarwaa portaan kuya guriyaha ku jira away naadiyaanay nimankii naga gudbay oo timiishadiinta haweenka SWSO ay waday laba kun iyo lix iyo toban hada igu sheegin naasoo markuu shirka soo galay lacagtuu shirka la soo galay nabaduu shirka la soo galay dajaabka maa gashtay oo gastii naaquraayo sameen
daran haweenkii waxaan nahay hadafka aan lahayne hadba kii yimaadaba hoyga geysanayay calashan araas haweentii dagaalkiyo hawshii adeegsada haddii hooyo maxaa dhahay wiilkii maamadii la eran jiray jamiilo wiilkeeda waa wadadii istaago maalin walba iskuulka waan ka aadi waay hooye hooye ma aqaan muxuu ganacsan yahay anigu iskuulka markaa dabcaba inaan aado xitaa garoonka xitaa asaga dartiis baa nooga caagay inakaan aan u dacwoonay هاي ما في عنها هاي ولا يقولون قالوا لما يك سكول كنا كأدوا وصل أنت وتاجر ولا يعيش الدرجة هاي ولا أنا اسمه حماد نير إنه وين كان قدر بدل لكن وين قدر بدل كم على يري هاي ما يا كان يرى قدر بدل وين كاجا يرانتي اسمه يكبر كيس وين كاجا ما هو يسوي تعبان برجع واحد ما هذا ويبري الشقة ولا معانا أنا شغل مجري وحياة السقف قالوا يعيش الله يك حتى ضل أنا ضل هذا الشارع ضل أنا اسمعي سيدنا cunuga yarka uu dhibano eedo marka isku socdo uu dhibkuuyiri ama deelay waa dila camal oo dili kalimaysi hadaa ka xog badan taana xog ku inta ku rada cunuga yaraan ka maama ay joogtaa adiga garan isbaal gargaar madal ismaaciil ku joogtaa waa inoo dagaal ama ku sheega gabadha inaan ku boolo أنا وأنا برنا رنا دي كفاية تقال بروا بنا ولا لا تين كريس باتين آخر ولا استوى دينيا أدوك ولا لا تين تجينا شو هو أساس كلامك وحير بانشي شيء يعني dalkan inaga iskale dadkiisuna waa inaga waxaan dadkan kuudahay dadkayga kugu mooyi dalkan inaga iskale dadkiisuna waa inaga waxaan dadkan kuudahay dadkayga kugu mooyi ay maqal waalay maruntaay waa sax waxaan dadka kuudahay inaan nagu ogen laakiin qofka fahansi xaqa jaab koob iyo 7 dagaal ku jira ka dhintay waa inaga waa ninkaas kalaga wiilkaaga baa dhintay sodogaa baa dhintay inaashigaa baa dhintay aabbahaa baa dhintay wiilkaaga baa dhintay naa maxaynu ku haynaa waxaas waa ka gudubnay nabad baa la qaatay haweenku waa mid ee laba mar waxaad barateen wax naga fahansiiya waan idin fahansiinayna awal gabdhaha way islaayeen fiiri yaa dhinta dhimashaa sheegaysay maya abbaay wixii laga soo gudbaan ka sheekaynayay gabdhahan oo kelisaa isku yara qayliyey waan heshiisiinay marka waxaan rabnay in aad maxay yidhi bal nala ogaato gabdhaha waxaan rabnaa inaan heshiisiinay way heshiiyey miya hadda way heshiiyeen oo xarunta iska dagaashay ani maalooda wataan idiin imaado waa jiraadeen meelaa furan oo saan waayo waa gabdhaha nabadoobay moogtahay horta washiidii waa kala galay waxaan soo ogaaday in nabad wax dhaata aysan jirno haweenkii degmada Kismaayo muddo dheer oo aad u dheer nabadooda ay socotay waa gart alxamdulillah waan soo ogaaday waan ka qayb galay waxaan soo ogaaday hadda maanta nabadaas aan dhacdo waxay dhageysta marka nabad waxay taabaan anigana idin sheegaya nabaday warkaa sheelan ninku waaye waa sheegay nasana abay saacan sax nabaday warkaa sheelan ninku waaye waa sheegay nasana abay saacan noloshana ku guuleysan
nabad meesha ay taal waxa yaal nimcada eebe weligeed dad baa daaran nabaday sidaadaba adigaa naflaha daaja ifka noola joogana adaa kaaba noloshiisa nabaday sidaadaba waxaa tahay nimciya khayr aad buu ku nool yahay nabaday insha allah ha nusqaani weliga nabada ha ku socona laakiin baqayo umadka sidaa adiga u kale inkastoo hay-adii weli dhexorkeeda ogaan laakiin gabdhihii kismaayo si isuguwada duuban yihiin uusan qabiil jirin qurub huursanaan jirin wixii jirin amba ogaada waan ku biiray dhinaceena kama biira nadhaqa walaalayaal waxaan ayaanba dhaqdaan maasha allah waa fahanay waana qaadanay insha allahu tacaala waana idin garab شيطان ما تساوي Ocean
magacayga waa Xalimo Faarax Godane waxaan mas'uul ka ahay hay'adan barnaamijka soo waday ee SWSO ee ku soo bilowday May 2016 ilaa abtuna waday oo macnaha maanta uu yahay gabagabadiisii oo macnaha marxalado badan soo maray aniga khudbadaas aniga ma jeedinayo waxa jeedin doona insha Allah gabdhihii hawshan ka soo qayb qaatay gabadhay u wakiisheen baa jeedin doonta annaga hay'ad ahaan waxaan maartaayay 2016 bilowgiisii isku taxluujinay maadaama aan nahay dad bulshada ku dhex jiro inaan haweenka tayeyno barnaamijkan waxaa la dhahaa tayeynta iyo ka qayb qaadashada nabadda haweenka Kismaayo la dhahaa si marka loo tayeeyo waa in ayaga laga bixiyo madmadowga ayaga dhexdooda ku jiro waa in laga bixiyo si ay iyaga oo hal ah oo midaysan oo beelaha dhan ee degmada Kismaayo ay ka muuqdaan oo gabdhahoodii oo midaysan oo gacmaha isqabsado iswada sabeen xiray si ay uga qayb qaataan nabadda deegaanka Jubbaland si ay uga qayb qaataan waa in ayaga la turxaan bixiyo ayaga la taroomo bixiyo ayaga la tiiraanyo bixiyo barnaamijkan wuxuu ku saleysnaa inaan heshiisinay ilaa 180 haween ah oo 30 walbaba ay qabiil ka socoto inaan heshiisinay muxuu ahaayay waxaa naga gacan siisay hay'adda Life and Peace Institute LBI marka la soo gaabiyo la yiraahdo
ayaan mashruucan ka codsanay annagoo SWSO ah wayna naga aqbashay guulihii laga gaarayna maantaan fadhinaa mashruuc kasta oo sida tayale loo qabto ama si maaragtay muxuu ahaa isxilqaan ah loo qabto ama xoolihii loo soo qaaday sida loogu talagalay lagu bixiyo sidan ayuu u muuqanayaa maanta waxaa halkan fadhiyo ilaa 180 gabdhood oo haween ah oo ka soo qayb galay tababarkii marba meel soo maraayay guddiyo soo saartay isgacan qaaday isa sameyn xiray diyaar u ah inay maanta ka qayb qaataan nabadda ayaga oo beelo kala duwan ah ay samaystaan dalladaas oo noqon doonto dalladda haweenka nabadeynta noqon doonto oo meeshii muxuu ahaayey marka laba beelood ama laba wiil wax is yeesho labada beel loo kala carari jiray gabdhahaasaa kala dhex fadhiisan doona ayagaana ka shaqayn doona ayagaana isu keeni doona mana jiri doonto waxaana idin ballan qaadaynaa anigoo codkooda ku hadlaaya codka gabdhaha degmada Kismaayo ku hadlaaya inaan gabar dambe oo wiil caana ka daba qaadaynin gabar dambe aynan qabiil ku hadlaynin gabar dambe aynan isxurjufaynin maxay ahayd laba wiil aynan u kala hiilinaynin ayagoo isku duwan inay gabdhaha iska gacan saari doonaan insha Allah waxaa soo dhan gabdhihii shaqada soo maray baa insha Allah idinka hadli doona waxaa meesha noo shir gudoominaya wasiir Cabdinuur wasiirka warfaafinta Jubbaland ayaa noo shir gudoomin doona asaga noo soo xiri doona wasiir waa la kululaaday waa ognahay laakiin inta gabdhaha nuxurka ay ka sheegayaan waa inaan dhageysanaa waxaa ma aragtay salaadiinta noo qudbayn doonta ugaas xiray waxaa maxay ahayd fadhiya xildhibaan Cabbaas waxaa jooga agaasimihii guud ee wasaaradda haweenka oo qaadan doona isagana kaalintiisa maadaama annaga aan nahay muxuu ahaa markaanagii horeba aan ka soo bilownay wasaaradda haweenka aan ka soo bilownay oo barnaamijkan ay xogogaal u ahaayeen ilaa dhammaadkiisana inay ogaadaan waa waajib dadkii furay waxaa ka mid ahaa Batraan oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee state-ka waxaana la socday oo mar walbaba lugta aan naga bixinaynin gabdhaha xildhibaanada ah Faadimo Nayn iyo Khadiijo ayaana gacanta lugta naga qaadin barnaamij wuxuu ahaa maamulka waxaa nagala shaqaynayay Timajile Cabdi Barre iyo Jaamac Faray marka insha Allah barnaamijka wuxuu ahaa barnaamij afarta geesba gacmaha lahayo heer degmo heer gobol heer wasiir iyo heer baarlamaanba intaba ay ka qayb qaateen xogogaal ay ka yihiin bay ahayd marka insha Allah waxaa kale oo nala jooga hay'adii lacagta bixisay managerkeedii baa nala jooga insha Allah oo waxaan oo dhan maal gelisay baa nala jooga oo siin doonaa kelmado waanan u mahad celinaynaa sida ma aragtay ay isugu taxluujiyeen in maanta ay gabdhaha Kismaayo barnaamij u gaar ah inay siiyaan hay'adda LBI aad iyo aad ay ugu mahadsantahay waxaan ka rajaynaynaa inay tagaan dhammaan gobolada oo dhan inay tagaan aan rajaynaynaa hadduu Ilaahay idmo mashruuca ku xigo waxaa idinku bishaareynaya inuu ka bilaaban doono degmada Doolow iyo wax la jira 2016 loo soo bilaabay xafladii xirtaankana maanta ay tahay hadda laba eray Xaliimaan walaashay ayaan ku xusayaa meeshan waxaan idhi Xaliimooy xumaantiyo xaasidnimada ka dheer waxaa tahay xabiib runa sharaf baana kugu xiran xeerkaagu waa nabad waxaa tahay xaqiiqdii qof xumaanta laga tiray haweenkaad xambaartiyo heshiiskii xasilintaba waa xeeraad dhigatay ha ku xurmeeya aadmigu annaguna xurmiya sharaf aan xisaab lahaynba ku yaal xaggeenne weligaa xusuusnow xamdi mahadi weeyaan hadday tahay xafladii iyo xiritaanka guushiyo nabadaan xambaarnana aan xaq dhowrna weligan aaw gabdhii miisaasasma maali weyn waana madaloan madax oo maantay waa maali weyn waana madaloan maandeeqno curatay maahaankeenu waa tamaan madaxda Jubbaland mahad baanu celinayaa midkiiba odoodi maqaao maslaxa ka tale
celi oo maantay waa maalin weyn waa malalahoda maandeerno curatay maahankeenu waa tamaan madaxda jubbaland mahadbanu celinhayaa ninkii moodoowi maqaalo maslaxa ka tale islaam weeye madaxweynaheena culus axmed islaam weeye madaxweynaheena culus dulqaadiya daadka dheer waa daboolan yahay ee dowladdaanahaya dambe dhafa loo kosey islaam weeye madaxweynaheena culus axmed islaam weeye madaxweynaheena culus dulqaadiya daadka dheer waa daboolan yahay ee dowladdaanahaya dambe dhafa loo kosey salaamayaa xildhibaanada sharafta leh ee dowladda Jubbaland waxaan kaloo salaamayaa wasiirada sharafta leh ee dowladda Jubbaland waxaan salaamayaa odayaasha dhaqanka sharafta leh ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaan salaamayaa gudoomiyaha degmada Kismaayo iyo gobolkaba waxaan salaamayaa gudoomiyaha saddexda gobol ee haweenka Jubbaland maama Batraan waxaan salaamayaa ururka dhalinyarada culimaawidiinka gabdhaha nabadeynta degmada Kismaayo fanaaniinta bahda saxaafadda ciidamada qalabka sida ee aad u mahadsan ee noo hirgeliyay maanta nabadan aan ku noolaanayna ee goobta nala jooga hadday boolis yihiin iyo hadday nabad sugud yihiinba dhammaantood waan salaamayaa salaanka bacdi maanta waa maalin weyn waa maalin farax badan aan leenahay waa maalin aan gabdhihii Soomaaliyeed ee ku noolaa degmada Kismaayo la nabadeeyay juhdi badan la geliyay waqti badan soo qaatay ee aan maanta u fadhino barnaamijkan gabagabadiisa haddii aan soo bilaabo barnaamijkan wuxuu bilaabmay 20kii bishii 6aad 2016 ayaa la bilaabay barnaamijkan qaabku u bilaabmayna waxa weeye markii la arkay in aysan helin gabdhaha Soomaaliyeed wax la yiraahdo nabadeyn ee rag kaliya la nabadeynayay dhibaatada markay dhacday dalkeena ay colaadda ay dhacday wixii loo furi jiray dib heshiisiin ama nabadeyn rag ayuu ahaa haweenkaasi way ku yaraayeen hadayba jireen saas darteed ayaa waxaa la gartay in gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool degmada Kismaayo loo sameeyo dib heshiisiin waxaana arintaas u qaban qaabiyay hay'adda sharafta leh SWSO oo kaashanaysa LBI saas darteed waxaa la keenay saas darteed waxaa la doortay guddi yar oo kooban oo soo xulay 180 gabdhood oo ku siman magaalada Kismaayo deegaanka ah ayaa la soo xulay oo qabiil walba leh oo qabiil laga tagay oo maanta magaalada Kismaayo degan aysan jirin 180kii ayaa waxaa laga dhigay 30 walba waa la tababaray isla dhexdooda ayaa la turxaan bixiyay markii la turxaan bixiyay waxaa ka soo baxay guddiyo way isxaal mariyeen wax alla wixii gabar ay sheeganaysay oo colaad ahayd halkaas ayaa la dhigay way isxaal mariyeen kitaab quraan ay isku dhaariyeen way heshiiyeen halkaas ayaa waxaa ka soo baxday gabdhahan maanta meesha fadhiyo oo u adeegaya degmada Kismaayo waxaa kaloo jira inay gabdhihii hayaan hawshii loo tababaray oo maanta degmo walbaba ay gabdho joogaan oo gabdhihii dhexdooda ay ka sameynayaan dib heshiisiin ay ka sameynayaan saas darteed arintan waa arin lagu guuleystay ayaan leeyahay intaa waxaan oga baxayaa wixii dhacay oo gabdhahaani maanta meesha fadhiya taariikhdoodii markaan soo aqriyay intaasaan oga baxayaa waxaan hadda u gelahayaa qodobkii ka soo baxay ee ahaa wixii ay ku heshiiyeen gabdhahan halkaan fadhiyo qodobo ayay ku heshiiyeen qodobadana waxaa ka mid ah
annagoo ah gabdhaha Soomaaliyeed ee degmada Kismaayo waxaan ku heshiinay wax kasta oo khilaaf ah oo dhexdeena ka dhaca inaan iska saarna aan wadaagno wax alla wixii khayraad ah oo ku jiro Jubbaland annagoo ah gabdhaha Jubbaland waxaan si wada jir ah u xalineynaa wax kasta oo khilaaf ah oo gabdhaha dhexdooda ka dhaca ayaan waxaan u xalineynaa si wada jir ah iyadoona la dhehaynin waa beel hebel iyo ree hebel iyo gabar hebel iyadoona la dhehaynin annagoo isku duuban oo cid walbaba leh ayaan xalin doonaa haddii ala yidhaahdo annagoo ah gabdhaha Jubbaland khaasatan gabdhaha Kismaayo waxaanan la safan doonin wax kasta oo nin uu keeno oo calaad waan ka hor imaanaynaaye inaan kala safanno oo biyaha u qaadno oo daba istaagno ma dhici doonto in aan khilaaf kasta ee dhex gala gabdhaha Jubbaland khaasatan gabdhaha Kismaayo si wada jir ah inaan u xalino okay annagoo ah gabdhaha Soomaaliyeed ee 180 ah waxaan isku dhaarsanay kitaabka Quraanka saas darteed heshiiskaas wuxuu noqday mid taabagal ah wax ka koreeya ma jiro waxaan soo jeedinay baaq nabadeed annagoo ah gabdhaha Soomaaliyeed ee jooga waxaan baaq nabadeed u soo jeedinaynaa qof walba oo nabadda ka qayb qaata in ay gabdhaha garab istaagaan si daacad ahna ay ugu maaragtay gacan siiyaan nabadda ay wadaan qodobka labaad waxaan baaq u soo jeedinaynaa gabdhaha Soomaaliyeed meel kastaba ay joogaan nabadda inay ka shaqeeyaan ay si wada jirna u qaataan waxaan baaq u soo jeedinaynaa SWSO LBI in ay joogteeyaan barnaamijkan ay wadaan mashruucan inuu noqdo mid taabagal ah ilaa iyo Soomaali weynna ay gaarsiiyaan libaanada sharafta leh ee Jubbaland oo aad iyo aad qaaliga oo aan jecelahay wasiirada agaasimaha wasaaradda haweenka gudoomiyaha degmada gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada gudoomiyaha arrimaha bulshada ee gobolka odayaasha dhaqanka haweenka qaaliga ah oo sida gaarka u jecelahay dhalinyarada Jubbaland ururka dhalinyarada ayagana sidoo kale aan hooyadooda ahay oo sida qaaliga u jecelahay bahda saxaafadda ciyaaraha fanaaniinta walaasha iyo Xaliimo oo gabadha qaaliga ah oo maxay SWSO waxaan leeyahay jiro joog iyadana waxaan leeyahay hawshan Xaliimo waxay u martay horta juddu badan bay gelisay waxay u tagtay wasaaradda haweenka way ka soo dhamaystay waxay u timid annaga way igala tashatay inay haweenka dib u heshiisiin u samayso oo ay u raadiso fankii haweenka lagu heshiisiin lahaa annagana sidoo kale waan ansixinay haddaan nahay haweenka Jubbaland maxay ahayd mar labaad markay dana keentay wasaaraddana way u tagtay way u ogolaatay ururka haweenkuna sidoo kale annaga u daafurnay mar labaad waxay noo keentay Xaliimo inaan gabdhaha Soomaaliyeed ee degan deegaanka degmada Kismaayo aan u soo qorno qabiil kasta gacanteenaan ku soo qornay oo ka soo qornay 30 Xaliimo dadka iyadu iskamay qoranin oo waayo waxa la dhihi lahaa haday iyadu qorato waxa la jifay qoratay iyo hebel bay qorataa la dhihi lahaa annaga soo qornay qabiilka Jubbaland dego qaasada degmada Kismaayo baan gabdhahan ka soo qornay wasaaradda ogeyd wax mugdi la geliyay maahan waa wax dharaar la keenay midda ogaada kuna seexda kuna soo toos ragow raggii gabdhihii waa tageen gabdhihii waa tageen waana tashadeen waana istiiraayo bixiyeen ilaahay idamkiisa waxaan ka rajaynayaa maanta waxaa lagu qabtay degmada Kismaayo degmada Doolow degmada Garbaharey degmada Balowxaawo degmada Afmadow degmada Badhaadho idan insha Allah marna gacanta ku soo noqon doonto 15 degmo dib in lagu aas-aaso laga qabto midaan iyo mid ka sii qaalisanba waxaan leenahay kale odayaasha dhaqanka
dhaqanka odayaasha dhaqankana xaliima iyaga ruuxooda inaad dib heshiisiin u raadisaan rabaa odayaasha iyaga ruuxooda dib heshiisiin u raadi dhalinyarada dib heshiisiin u raadi muxuu Aisha waxaa jira odayaal iyo hadda haweenkii waxaa sirrisan haweenkii odayaasha in la isu keeno ayagoo taasna waa codsanayaa oo dib ayaad u samayso waxaan leenahay hay'adan ha ku daydeen hay'adaha jooga degmada Kismaayo ha ku daydeen ha la soo xiriireen wasaaradda haweenka saacad waliba 4 baa haween baa wax lagu qabanayaa meel waxaa leeyahay dib heshiisiin baan u qabanay dib heshiisiintan aan u aqaanaa midaan ahayn wasaaraduna ma taageersano wasaaradda haweenkana tan way taageersan tahay muxuu ahaa ii sheeg annaga ururka haweenka Jubbalandna waan taageersannahay sidaan baan rabnaa dharaar iyo dhulmaanta la yiri tabtana kale wax loo qabsado ku talagala halka waa maadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad wasaaradda waa ku kala taagan tahay haweenkii ururka haweenkana ku kala taagan Jubbaland dhammaanna waxaan leenahay xildhibaanadeena oo gabdho oo laba ana gabadha saddexaadna ay naga maqan tahay ayna ku kala taagan yihiin mar labaad insha Allah assalaamu golaha wasiirada bismillaahi raxmaani raxiim golaha wasiirada golaha baarlamaanka agaasimayaasha guud ee wasaaradaha maamulka gobolka iyo ka degmada gudoomiyaha ururka haweenka stateka Jubbaland gudoomiyaha ururka dhalinyarada odayaasha culimaadudiinka gabdhaha Soomaaliyeed kuwa jooga iyo kuwa maqanba bahda saxaafadda ciidamada qalabka sida gaar ahaan kooxda bidixeeda fadhida ee basbaas bahda saxaafadda oo ugu horeeya beelaha Jubbaland iyo cid kasta oo hoolka ku sugan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام marka hore ilaahay baan u mahadnaqaynaa asaga mahad iska leh asaga ina abuurtay asaga ina maamulo asaga aan hoos tagnaa ilaahay oo mahada mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa maamulkeena suuban ee nabadgelyada maanta aan ku nooloonayno inuu hogaaminaya haba kala sareeyeen madaxweynuhu ugu sareeyo ilaa inta ugu hooseysa ayaguna way mahadsan yihiin waxaa mahadsan munaasabadan qaaliga haddaan la dhihin waa lisdili meesha maanta waan aragnaaye wax walba waa xaggooda dadkii soo abaabulay ee taariikhda laga sheekeeyay dheer ka soo shaqeeyay juhdiga geliyay inay ummadda Jubbaland halkan isugu keenaan oo laf dhabarta gabdhaha Soomaaliyeed ay koow ka yihiin ayaguna waa mahadsan yihiin hay'adaha ku kaalmeeya aad magacyadooda oo ma aqaan ayaguna aad bay u mahadsan yihiin inta haddaan ka gudbo ifafaalaha meesha ka muuqda kacaankii baan maanta soo xasuustay ninkii dawladda kacaanka joogi jiray oo ururkii muraayadga raadiyo soo gaaray naxariista allaasi may dhimatay taasaa la soo xasuusanay waxaa la rabaa wax la soo xasuustaa la rabaa marka haddaadna soo xasuuseen dawladdeena dhacday qiimaha badnayd idinkuna aad baa u mahadsantihiin bal hadda maxaa layga sugayaa waqtigu waa kulul yahay waxaa fiican maanta khudbaddu inay dheer tahay laakiin waa gaabinayaa mahadnaq haddaan ka gudbo xaliima aad baad u mahadsan tahay waa aad baa lagu ammaanay adiguna aad baad u mahadsan tahay waxaa la yidhi waa markii koowaad oo anagu aan ka qayb galo meel gabdho lagu heshiisiinayo marka waa cimri dheer weeye ilaahay baa na soo gaarsiiyey ilaa wax khayr la ka soo bixi wax khayr la ka muuqdee horta ilaahay baa mahadle isukaan keenay annagoo caafimaad qaba oo nabad qabna marka ugu horeysa waa inaan ilaahay u mahad celinaa alxamdulilah rabbil caalamiin sababtoo haddaan ilaahay na siinin
nabadan iyo noloshaan isuma aanan imaadneen midda ku xigta marka u horeysa waxaan u mahad celinayaa gabdhaha Soomaaliyeed madaxdaydana anoo og laakiin eventiga maanta ama waxaan maanta jira gabdhaha iskale soo marka u horeysa adinka ma hadda koowaad iskale marka ku xiga waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo oo aan u mahad celiyo wasiiradeena xildhibaanadeena ururka dhalinyarada degmada madaxdeeda degmada gobolka gabdhaheena qaaliga oo xildhibaanada iyagu mudnaanta koowaad ay ku jiraan gabdhaha ka mid yihiin marka kulligiin waan idin mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa kooxaha fanka oo runtii entertainment fiican meeshaan ka dhigay iyo heeso fiican oo qiimo gal ah oo dhaxal gal ah oo baraarujin ah sababtoo ah adeer xiray wuxuu yiri dawladii kacaanka dadkii soo gaaray annagu dadkii wax ku soo baranayna dawladii kacaanka ma yari marka baraarujintii ka bixi jirtay raadiyo muqdisho waxa ugu weyn waxa ka qayb qaatay waxay ahaayeen bahda fanka oo runtii hobaladii waa bari si fiican uga qaatay soo waxaan rajaynayaa Jubbaland inay arinta fiiran dheer u lahaato fankuna iskama soconaya hadayna dawladdu taageero siin soo marka dawladdu inay arinta garab istaagtaan rajaynayaa hadii Ilaahay yimaado waxaan u mahad celinayaa Xaliimo noloshayda inta arkayay waxay ahayd leader waxay ahayd qof haweenka u shaqeeya I think aniga Xaliimo mar horaan isbaranay waqti dheer baan isbaranay waxaan isku baranayna waxa weeye wada shaqeyn iyo anagoo u shaqeynayna danta ummadda Soomaaliyeed khaas ahaan danta Jubbaland iyadaana aad ugu dheereysay sababtoo anigu waxaan ahaa dadka diasporada la yiraahdo marna waa ordaan marna waa soo ordaan laakiin iyadu waxay ahayd qofkii dhidibada u aastay oo runtii meeshan ka shaqeeyay haddaan damiir leenahay Soomaalinimo nahay waa inaan horta qofkii wadanka wax u galay waa inaan xusnaa dadkeena sababtoo ah haddaadan dadkaaga xusin ama adigu aadan is xusin waxaa weeye adna waxba ma noqonaysid nin gaal ah oo jaamacad noo dhigi jiray wuxuu yiri you have to thank yourself marka horeysa waa inaad adiga istanki karayso yiri weligaa ma arkaysid qof thank you ku dhaha except adiga inaad isbaraarujiso ma ahe soo marka u horeysa annaga inaan dadkeena madaxdeena inaan tanki garayno waay midda ku xigta inaan dawladeena qiimayno weeye sababtoo ah haddaan dawladda qiimaynin oo ciidankeena qiimaynin oo madaxdeena aan qiimaynin waxba ma helayno qof kasta oo maamul haya horta qiimo naga mudan yahay waa inaan qiimaynaa marka u horeysa sidaas aan wax ku noqonaynaa marka xigta oo dhaqankeena oo runtii 20 sano oo dhibaatadan socday ka qayb qaatay dib u soo celintii noloshii Soomaaliyeed ama dawladnimadii Soomaaliyeed iyagana waa inaan u mahad celinaa sababtoo ah waxay ka qaateen runta markii laga hadlayo door aad u weyn ayay dhaqanka Soomaaliyeed ka qaateen hamatareen qabiilo laakiin dhibku wuxuu ka dhacay qabiil soo hadduu qofku xalliyo naftiisa hadduu qofka xalliyo gurigiisa dan wuxuu xallin doonaa dadkoo dhan soo iyadana dhaqanka Soomaaliyeed runtii waa inaan u mahad celinaa inay heerkan soo gaarsiiyeen taas iyadana waa mahad celin gabdhaha Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa dhibaataan horta gabdhaha Soomaaliyeed ahayn Soomaaliya kama dhicin runta markii la rabo ninku xabada ha qaato laakiin wax ka xun baan sameeynaa annaga waxaan aad ugu faraxsanahay waligeyna ma arag gabdho Soomaaliyeed oo shir inta isugu yimaada dhaha khaladkaanaan sameynay maanta ka hor sababtoo ah runta markii la rabo gabdhaha Soomaaliyeed maanta riwaayad ay dhigayeen waxay qirteen qayb ka mid ah dagaalkii Soomaaliya inay yihiin wayna ahaayeen laakiin weligood ma qaran because shirarka markaan tagno ama ajnabi ha joogo ama Soomaali ha joogtee waxay iska dhigayaan victimka inay yihiin inay iyagu dhibka ku dhacay badan waxa iyagu sameynayaan ma sheegayaan sababta aniga markaan ninka raaco markaan shaaha u kariyo markaan xabada u gado markaan jaadka u gado markaan ololeeyo dan waa ka qayb qaata qabiilkii markaan ninka dhaawaca oo aniga qabiilkayga kaliya daaweeyo
oo wax u taro dan waa ka qayb qaatay qabiilkay oo aanan qofka Soomaaliya oo dhibaataysan aan daawin soo waxaan ku faraxsanahay Xaliimo iyo groupkeedu inay maanta runta sheegeen first time in my life waxaan arkay wax runta sheega gabdhihii maanta halkan fadhiyay waan ka qayb qaadanay dagaalkaas marka waa inaan joojinaa wasaaradda warfaafinta wasiir Cabdinuur ya agaasimaha wasaaradda haweenka xildhibaanada sharafta leh kala duwan gabdho iyo niman odayaasha dhaqanka ogaaska uu wasxiray ugu horeeyo haweenweynaha ururka gudoomiyaha ururka saddexda gobol haweenka Marwe Badran ururka dhalinyarada iyo xubnaha ururka dhalinyarada madaxdooda iyo xubnahooda qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay gudiyada xaafadaha ugu horeeyaan haweenka qaybahooda kala duwan ugu horeeyaan fanaaniinta labada hay'adood oo kala SWSO iyo LBI iyo dhammaan marti sharaf ka soo ciidamada amniga ku jiraan siyaasiyiinta ku jiraan qaybaha wixii aan dhaafay dhammaantood ay ku jiraan assalaamu calaykum waqti dheer baan meeshaan joognay murti badanna waa ku baxday cad baan raalli uga nahay anaga ku hadlayn degmada Kismaayo waxaan cadeynayaa barnaamijkan markuu soo bilaamayeen inaan joogay oo aan wax ka ogaa haatan oo dhamaanayaan aan joogo barnaamijkan waxa barnaamij dheer waqti dheer socday barnaamijkan waxa tiraya bixin waxaan afka qalaad lagu yiraahdo Tram Hills waxa lagu dhahaa afka qalaad waxay tirayeen bixin baahayd waxa la tirayeen bixiyay dhammaan qaybihii kala duwanaa oo haweenka ahaa oo qabiilooyinka ahaa oo degmada Kismaayo joogay ayaa waxa loo sameeyay waxa la yiraahdo in la tirayeen bixiyo in la soo keeno qof walba hadlo oo qofku wax u qabay gabadhu wax u qabay gabadha ay sheegato waxaan goobjoog u ahaa beesha jareer laba qaybood oo kamid ah 26 sano dirsanayeen goob waa la heshiiyay waxa 26 sano gabay iyo buraanbur iyo heeso iyo cay iyo aflagaad intaas isku wadeen waxay markii hadleen qol walba oo la ogaaday maxaa isku caayiseen maxaa ku dirireyseen maxaa indhax yaalay qol walba qoomameys hortanadii ku wada ooyeen wayna iscafiyeen marka dambe waxa barnaamijka dadka laga soo bilaabay kamid ahaayeen waxaan rabaa inaan aniga war badan dhaha ma rabo waxaan laba qole labada hay'adood barnaamijkan fulisay oo ugu horeysa hay'adda SWSO Xaliimo waxaan ballan qaadaynaa inaan bilo sharaf ku siino anoo ka hadlaya degmada Kismaayo adiga hay'adaada waxaan rabaa oo kale in halkan ka soo joodiyo kooxda iyo abwaanka soo abaabulay iyo kooxda labada qayboodba ah ama kuwa dhaansiga ha ahaadeen ama kuwa heesaha ha ahaadeen ayagana inaan maxay ahayday dawladda ugu baaqayaa iyo qaybaha kala duwan oo ay ku jiraan hay'adaha in gacan la siiyo maxaa yeelay hididila meeshan ka soo muuqato qiimo leh Soomaalilimo ah abaabul ah dejin ah waxay ahayd fikir ah qiimo laha ka muuqatay markii aan fiirinay xamaasadii iyo ka muuqatay iyo heesahoodii iyo majaajilooyinkoodii waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay gabdhihii markii laga saaray tiraanyadii markii laga saaray inay maskaxdoodii tiraanyada markay ku haysa waxa xirmaysa maskaxdan dadka saddex qaybood maskaxdiisa u shaqeysaa qaybta ugu muhiimsan waa qaybta halkan ku taalo weey qaybtaas shaqeyso waa qaybta hal abuurka iyo xigmadda iyo sacafiska iyo talada iyo qiimaha leh weey marka qaybtaas dameysa waxa kugu soo haraysa qaybta oo tiraanyada la dhaho oo dhibaatada kaliya hayso hebel wuxuu ku caayay hebel wuu ku dilay hebel saasuu ku yeelay hebel waa hebel baa saas aha waxaas ku soo haraya taas xasuusti wax ka lubaysa aragtidii ficneed iyo fikirkii iyo hal abuurkii iyo xigmadii dadka ku jirtay iyo kicintii iyo abaabulkii iyo dhaqaaqii dadkii bulshada oo dhan baa meesha ka maqays maxay yeelay dadka oo dhan intay ka fikirayaan meesha inta ka fikir laayeen waxa maanta muuqata gabdhaheena inay ka fikirayaan inay ka fikirayaan waxa muuqata gabdhaheena inay keeneen maxay ahayday maskaxdii loo baahnaa inay keeneen inay darareen oo gabiyeen oo heeseen oo buraanbureen oo qosleen oo farxeen oo majaajile intaas oo dhan waxaasan awal ma jirin waxaa keenay iscafiseen iyo qiimaha lidin sameeyay abaalgudkeedina meeshaad maanta dhigteen hay'adan iyo hay'adii kale waxay in sameeyeen abaalgudkeedii qiimaheedii banaanka aad keenteen
waxaa halka ka muuqato barnaamijkan si fiican loo soo abaabulay waxaan aad ugu faraxsannahay hal la qabta shaqada laakiin sidii loo soo abaabulay oo lasu soo dabadhigay oo looga soo shaqeeyey oo annaga xataa mataqaana maxay nagu tirayeen bixiyeen oo ina geliyeen siday uga soo shaqeeyeen xalimo iyo dumarkii qaybaheeda kala duwanaa iyo dadkii barnaamijka kala shaqeeyey labada hay'adood si ay uga soo shaqeeyeen u soo dhigeen naftigeeda waxa weeye wax weyn oo lagu dayda weeye waxaa kaloo waxa lagu daydaa salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah xildhibaanada dowlad goboleedka jubbaland gudoomiye ku-xigeenka gobolka gudoomiye ku-xigeenka degmada odayaasha dhaqanka gudoomiyihii hore ee gobolka jubbada hoose brofesor Ilyas ururka haweenka oo ay hogaaminayso maamo Badraan anigu maama leeyahay inkastoo ka weynahay waxay qabataa maama u leeyahay baxda saxaafadda fanaaniinta oo runtii aan isdhihi kara waxay isoo xasuusiyeen hab masraxeed aan arki jirnay waayo riwaayada la dhigay majaajil male maxay dhaxtaal male riwaayad maaha wali Jubbaland kuma arag iskama lihi riwaayadii hadda halkan lagu dhigay qaab masraxeedka sidii loo soo qaabay waxaan ka garan karaa nin fan ah abwaan ah inuu baasha lu ku lahaa waa Abwaa Shaafici fanka oo kala baxo fanka lorlaansiga ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo runtii heesahan anigu reer gololaanahay hurdadiid baa la dhahaa jirta oo ninka hadduu jiifaataa uu hurda kale gab haday yeerto hurdadiid Allah sariirta ku galgalaysaa waa soo baxaysaa marka hurdadiida waa la tubay runtii waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda haweenka iyo xuquuq aadanaha oo qorshaha markaa la keenay ee loo soo bandhigay ogolaatay fasaxday iyo gudoomiyaha haweenka Jubbaland isla markii loo soo bandhigay oo loo fasaxay haddayna ayaga fasaxi laheen oo lagala dhaadhicin laheen ma socoteen mana sirgashan kadib waxaan ku faraxsanahay in degmadii loo sii dhaadhiciyey gobolkii la geeyey mid kastana ay yiraahdeen barnaamijkan waa barnaamij fiican hor ha loo socdo dowladda la sheegana ama dowladnimadana waa intaas wasaaradda wax ma qabato waxa fiican ayay okay gareysaa idada waxaas waa fiican hor ha loo wado waxaan leeyahay maxaa marqaati ka nahay haweenka hadday heshiiyaan ama ay shaqeeyaan in Soomaaliya inteeda kale ay hagaagayso dadka Soomaalida inta kale inay hagaagayaan sababtoo ah haddii ciji laga hayo habeenkii xanuunada ugu xanuun badan iyo isha sida la yiraahdo xanuun inkastoo dhib badan yahay meelaha xanuunka badan ayay ka mid tahay haddii haweenkii caafimaado oo haweenkii isku dib dhacaan oo haweenkii hal mid noqdaan oo shaqeeyaan cid gadaal u laaban karta ama dib u laaban karta ma laha واسعوري هذول قليال أنا استمر كده هوسو كقولوا على فري هوسو كقولوا عوري وليه قلياش هذول بيلع كلامال مركب بس لو ما الكلام هذا كوكاب دونا هديلانا هذا كوسو كاب دونا وهي ماشي كلها بنن وحن كلهم ما هتقدر وعلنا إلى محله بوستيو أنا قانون عليك رنتي أو أبوارد على الأوجه لكن واحد يشجع بوستيو أبوان تاي abwaalada hadda kadib ku tala gala qol kasta wax sameynaysa inay boostay u yeeraan qolada u yeerteen waa mahadsantiin boostay waa teesari magaalada Kismaayo haweenka waxaan leeyahay haweenka ha ku ekeenin degmada Kismaayo waa sida hor u sheegteen hor ha loo sii wado aan leenahay barnaamijka kooma joogo far kama qodno dokumentiga waxaad dokumentaariga la tustaan filimkii weynaa waa idinka rabaa waxaad idinka rabaa degmooyinka gobolka Jubbada Hoose inta xorta ah gobolka Gedo haddii alla idmo gobolka Jubbada Dhexe waa la xureyn doonaa barnaamijkan barnaamij taxana inuu noqdo wasxiiray eriga atiri aha xaleema diboshiisiinta ana diboshiisiin kala wado xaleema iyo dad kale loo wado hadii laana taasna hal ila qaado diilana ana leeyahay ballan qaado ila qaado xaleema waxaan ku leeyahay waxaan na tustay adiga iyo dadkii kula shaqeynay iyo haweenka reer Kismaayo wax runtii lagu faani karo xasuus leh taariikh leh bilad iska dhaafee waxaan diyaar u nahay adiga iyo inta kale ee shaqadan kula qabatay ma la gaarsiin kare inaan bilado siino hadii ilaahay shahaado sharafi aan siino waxaa leeyahay Soomaaliya ha noolaato Jubbaland ha horumarto haweenka
jubbaland guud ahaan ilaahay hadduu yidhaahdo waddada wanaagsan maraan kuway maraan annagana allah naga dhiga wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu قول الله كذب كتشال عداوه أرى اسكتي سنادا كتشال عداوه اسكتي سنادا خير الله كده